سلطان وها قرتوش القرآن before ما عرفتي وصل استعمار ودن كسوقل markii isticmaalku wadanka soo galay wuxuu ahaa nin diin oo mataqaana diintu ugu dhaqma ayuu ahaa wuxuu wax xukumi jiray inta badan in kastoo dhaqanka uu jiray haddana dhaqan diinta waafajin jiray buu ahaa waxa ku xigeen ahaa nin la yiraahdo Macalin Usmaan ninkaas Macalin Usmaan oo la yiraahdo markii gaalada timid wuxuu yiri Malaaq Cabdi قالت يا وي قالت الطلياني الطلياني هو رواي كل جد بقول كهر وحو يري أنا about من آد دوام بو هاي يعني سنوين فرا بدن بنقر سو حكومي حتى إن كقاطو أمر كقالة أنو مسامين كان مع اللي يسمانو وسيكو حاجين كيسوها أيو دوب كوسان مركي كوني سديد بقول something أما كان أو برلين نقول رئيسنا الصومالية odayaal oo Soomaali oo la kaxeeyay baa jiray oo meesha la geeyay Macalin Usmaan oo gaar markaa boqor u ahaa meeshaas waa dadkii la geeyay ku jiray marka kadib waxa isaga uu dhintay oo waxa madax u noqday tuus waa kala baxay nin maxaad abduusan laa la yiraahdo quraanna waxa uu noqday nin oo maxaa la yiraahdaa aw caliyo dheer la yiraahdo ayaa isagana boqor u noqday labadooda ilaa hadda wadadaas ay ku socotaan marka sheekada waxaan ka wada garre weligiis wuxuu ahaan jiray dad iyaga isku filan ninka maxaad abduusan laa la yiraahdo wuxuu ku dhintay xabsi wuxuu diiday garre in oo mataqaana teen la saaro in la gubeysto dadka oo wadankaas deganaa yani beeraha kala gaalada lagu fali jiray naagahoodii raggoodii yani beerahaas ayaa lagu fali jiray laakiin garre waa diiday waxaana mataqaanaa oo markaa madaxa u ahaa maxaad abduusan laawo waxaana ma aragtay heshiis waxay ku gaareen nin garraa in aan la saarinteen laakiin oo mataqaanaa markii ay soo baahdaan gaalada yani transportation ma lahayn geel ayaa transportation ahaa garaha geel in mataqaana laga gato oo mataqaana uu keeno ayaa lagu heshiiyay sidaa darteed garra ma gelin intaankii taa waxaa kaloo ay keentay in oo maxaa la yiraahdaa duurka uu soo galo markii hore wuxuu deganaa shaan iyo raqayle iyo shanta beled garra meesha la yiraahdo hadda loo yaqaan hadda nafteed waa la degan yahay ayuu deganaan jiray beere waaweyn uu ku lahaan jiray marka isticmaalka yimid oo gumeysiga yimid oo yani ayuu ka guuriyay duurkaas uu iska galay xoolihiisu iska dhaqaalaysan jiray marka dawladdu wax ka galay haba yaraatee ma jirin waxaa kaloo ay dhalisay in oo maxaa la yiraahdaa asaga si optional uu noqdo oo teenka yani ka badbaado dadkii oo la deganaa oo mataqaana digilka ahaa iyo biimaalka inay caadowsadaan oo maxaa la yiraahdaa ninkii garre sheegto hadduu bacday inuu garye waa la deynaa laakiin ninkii kale waxaa loo bixiyay garre markaas oo lagu magacaabay kaligiis balasow kaligiis xorra wax kaloo xor ah ma jiraan marka sidaasaa looga bixiyay marka sidii waagaas garraha waxa waaye duurkaas uu ku jiray wuxuu ahaa dad ku tiirsan iyaga dhaqaalahooda shaqadooda awoodooda ku tiirsan uu ahaa marka tii waxay keentay inuusan dawladba ka warqabin talyaaniga dadkii hoosta ka galay oo gumaysan jiray iyo kuwa kala booye iyo waxaas u ahaan jiray dadkii inuu xukunkii yani dadkii inay reer magaal noqdeen dadkaas inay wax barteen inay xukunkii markii la gaarin xukunkii ayaga ay mataqaanaa hoosta ka galeen oo gacanta u galay gara markaas intee jiraa wuxuu jiraa baadiyo ayuu jiraa sidaa darteed ilaa hadda waa la soo qabsan la'yahay waa la soo gelay la'yahay even iyadoo hadda ay dhacday burburkan dhacay oo dadkii dhan isku mid la wada noqday haddana weli inkastoo rag badan wax barteen oo iskool la wada galay mataqaanaa xoolaha sanadka
dagaaladii 1993 labadii waa la dhacay wixii geel aslaha oo dhan waa laga dhacay waxaa ka dhacday raxweyn eelay u hogaaminayo dad badan baa qaxooti noqdo xamar soo galay oo afgoy soo galay oo qoryooli soo galay dadkaas carruurtooda wax waa barteen laakiin maxaa la bartay ilaa hadda maxaa Soomaalidu yaab isku toosi la marka dhaqaale la'aanta sadaa ay ku jirtaa marka waxa uu garaha siyaasadaha uusan ugu qayb galin xamar Soomaaliya oo xukunka uusan ugu qayb galin ilaa haddana safka dambe ugu jiro waxay tahay asaga dhulkiisa barwaaqo waay waxa waay maxaa la yiraahdaa beeraha ka baxa waxa waay xoolaha daaqsinkooda leeyahay wax wal nooc wal bani aadamka noloshiisa ama taqaana asaga meeshiisa ku helaa marka sidaa darteed ayuu dhulku u galay sidaasuna متقانا حكمتي وقفوا هذه حدنا أذين كلهم بإبر ما دد بدن وحبرتي واجران دد بدن بايع مشتري واجران دد بدن ومتقانا دولد وشقية واجران دولد أبندرين يوبي مركا واسدا سببته وكرها حد سياسة هان حقيقة كجرة لنا حقيقة كجرة هذا سياسة هان كرها وحواي سدح اللبان وليه Soomaalida waxa waaye hadda waxa la yiraahdo waxa power sharing la yiraahdo ayaa lagu dhaqmaa power sharing kaas waxa waaye yani Soomaalida waxa loo qaybiyaa 4 qaybood iyo nus 4 qaybood waxa waaye hawiy iyo daarood dir iyo digil iyo miriflow garaha wuxuu ka tirsan yahay digil iyo miriflaha ay qaybtii ay u heleen ayuu digil iyo mirifla loo qaybsaday hadii digil qaybtii u helay buu asna wax ka sii helay marka waxay noqotay saddex xildhibaan had waa leeyahay yani ma ahan qof yani qabiil tiran ma aha qabiil magaciisa meesha jiro waay qaybtiisa qaadanayo oo ma wixiisa qaadanayo wasiirku xigeenna uu leeyahay waa intii dawladahan meelgaarka lahaa waa mar waxay heleen wasiirka gaashaandhigga mar waxay heleen wasiirka beeraha oo isla markaasna wasiir ra'iisul wasaare ku xigeen mar yani xildhibaan 5 iyo meelahaas oo ka yoolaan jiray marka haddana waxay joogtaa markii qaybtii power sharing saddex ayuu u helay saddex xildhibaan iyo hal wasiir ku xigeenka joogta maaha waa laga yaabaa in wasiir uu helo yani marka soo socoto maxay la digil 8 qabiil waay 8 qabiil laba wasiir soo dhaxmartay labadii wasiir marka marba qabiil baa yani la siiyaa hadda gar wasiir ku xigeen ayuu helay tookada soo socoto waxaan rajaynaynaa inuu wasiir helo shaqooyin kala hoose oo aad u far badan waa leeyahay intaas ayaa ka ogaa gobolka la sameynaya gobolkee ka qaybsan yihiin gobolka shabeellada hoose ayuu degan yahay shabeellada hoose waxa iyo shabeellada dhexe shabeellada hoose bis dhexe shaqo kuma laha arrintaas waa la diiday miya TYT oo dawladda Johar iyo kii kale kuwaas taas waa socon waysay inkastoo gudoomiyaha madaxweynaha uu garan yahay laakiin wili taas waa socon la'dahay waxa socda hadda waxa la yiraahdo mintaqana saddexda gobol iyo lixda gobol la isku haya labadana hadii lixda gobol la qaatana shabeellada hoose lixda gobol ay la jirtaa hadii saddexda la qaatana waxay la jirtaa gobolada koonfur galbeed waayahay waa mahadsantahay sheekh odayay ka booti ama wiil xoogli ka ay xabaare ilkii haboogani riyo uga woodee